مدن قدومية كحجين مدن عيال سلامة إسلام ككبة عدي وحبذا وأنهار يوقبي برا نجيستي سوجيدنتي سيدي تيلس كاهيد معرفتي هل كان هوري أوغتيري وزيرة خديجة محمد ديرية ورتعيان لقبا ووحبضا وأي قادات دكتي لكن مركا ليسوي ماذا نظامكي ولي 4.5 أو تاجن ولو بقول تضباطن يشن كراستن أيو قيبسن تهي حدي صدن يكو شلي باريه أيجا كو أها حل أما معركتي لقول هذين أي وأنا الحق أهين هذانا دورشة حلال هذانا أنت ما قعلود به وأنا حق درنا ماشي كمرنين أنا أقولي وحا كفوس إلهية سيدي إسوافق كران حق درو يدورشة حلال إلا نهاري حق لمربو حلال ربو حلقين لما هايو حقين لما هايو horta wax ummadda Soomaaliyeed ee dadka la isku geeyay inta soo beelood ee 31 loo dhaxaysiiyay haddana hadii tira ayaga la xisaabi lahaa ay ka badnaan lahaayeen saan aaminsanahay 90% dadka hadda beelaha ee dhameystiran ee 61 la siiyay haddana in meeshoodii lagu sii hayo magacyo fiican haddana loogu yeero horta laba isqabata maaha tii beerda weyd cudur daar baa loo sameeyay waxa la yiri xaq lama rabee xal baa la rabaa haddii maantana la leeyahay doorasho xor iyo xalaal haddana sideebay isla halkii shalay xaq darradii iyo wax aanan xalaal ahayn ee dastuuriyan ay u noqonayaan oo ilaa abad inay sidaas ay ku ahaadaan beelo Soomaaliyeed ee ka tira badan intii la doono ka baaxad weyn dhulka ay degan yihiin resource-ka ay haystaan 3 jeer ku soo laabmayo kuwa hadda ku helay qalinka ee ahaa hal baa la rabaa xaq lama rabo in haddana loogu xalaaleeyo dastuuriyan looga dhigo inay sii shaqayso ilaa abad bakartaya waa in dastuuriyan aan laga dhigin qodobkan beridawid gentleman agreement buu ahaa wadanka oo qalalaasa ku jiro ayaa lagu saleysiyay wax dastuuri ama aan wahayn haddana waxaad moodaa in laga dhigo qodob dastuuri ah in beelo Soomaaliyeed ee doodka nabi aadam ku kulmayo in ayaga la isku hayo oo la siiyo had iyo jeer inay ahaadaan bulshada dadka hooseeya ee nus ah wahada la yajuus ilaahayna hortiisa kuma banaana walidhakari mithla hadhi al-unthayayn ilaahay quraankiisa ma una dhihin ma aragtay dadka ma aragtay ama saasheegaya qaylada iyo cadayska badan ayay laba jeer maantay ka sii maantay xaq mudan yihiin dadka kale ee maantay the silent majority ah arintaasi aniga waxaan ka qaba concern in aanan dastuurka lagu qori karin 275 awood qaybsiga inuu noqdo 31 shalay iyo 61 beelaha kale waa in haddii doorasho ayada one man one vote ay tahay reer waliba ha is ogaado tiradiisa kiilaandheera ay kiilaanqaba waa la ogaanayaa laakiin ayaanan lagu dastuuraynin wax in cadays lagu sameeyay awood qaybsi oo jaantaar rogan ay ahayd ee dad meel isugu tagay qoryo haysta ay soo dejiyeen taay wixii ka dambeeyo doorashada way iska caddahay Soomaaliya meel maanta inta la baxo sanduuq la dhigan karo oo awoodeeda maanta ninkii shalay yiri nusa tahay maanta ayagoo rag yadana taagan inuu asaga lagu doorto si xalaal ah oo ku soo baxo codkiisa way adag tahay haweenka Soomaaliyeed waa jecelnahay waa walaalahayna maalin walba ayaga hadalhayntooda kootadooda la yiraahdaa war umada Ilaahay abuuray rag ayaga laga sameeyay nuska laga dhigay ay kootadooda ayagoo niman rag oo Ilaahay aan nuska dhigin ayaa iyagii la soo simay waxaan waa western idea and we are not going to accept ma aha wax islaam iyo diin iyo wax ay ku qatanto waa wax la soo minguuriyay ee laga keenayo wadamadooda kama jiraan wax anaga ay sheegayaan ahsaata tirada ay badan ay sheegayaan wadamadooda kama jiraan saddex xisbi bay leedahay Ingiriiska waa naqaana Labour Conservative iyo wixii kala lamid ah Mareykanka waa ognahay Democratic iyo Republic uu leeyahay annaga 9 xisbi ee meeshan la wado ee nin walba halka reer kaliya ayaa wuxuu leeyahay 60 xisbi ma gartay يا واي نكم أكتر شلي ما بدكي نلقي غريني ما أنت نلقي علينا يا لا يمضغ مرتين في جحر واحد نكم مؤمن كأ
marka waxaan rabnaa dastuurkan in anaga loo saldhigo xataa anaga guddiga doorashooyinka xataa dadku ma lihin magartaya iskaba dhaaf wax kale wahada laa yajuz maaha wax soomaalinimo ee lagu qancin karo waxyaabaha lala soo hordhigayo ee maalin haddana annagoo noola soo jeedno oo soo taagan inala cuno ma ogolaan karno dastuurkan waa in lagu salaysiiyaa ama mid muslim ha noqdo ama mid gaal ha noqdo wuxuu yahay waa garan laanahay